ورحمة الله وبركاته. ساك حجاب صاحدي waxaan ku yiri tawakaas saxaabi ka soo waran بالحجاب kana waxaan ni wada video yar oo nin caan ah oo xildhibaan oo xaaskiisu baraha bulshada timay iyadoo ka cabanaysa dhibaatooyin aad u tiro badan. Hadaba videogan waxaan u soo qaatay qof kasta oo social media wax ka difaaca hamoodin noloshiisa bareefadka xataa inuu soo difaaco. ninkan waa nin Soomaalida dhan u danqada, waa nin cid kasta oo la dulmo u danqada, balse xaaskiisa iyo caruurtiisa ma danqado. Anu waxaan oran karaa ninka ma oran karaa inuu geesi kaliya, waxaan oran karaa inuu dadka istustuso oo sumcad ka dhex samaysto. Sumcadda waxaad ka dhex samaysan kartaa ubadkaaga iyo xaafadaada, ma aha inaad ubadkaaga dayacdo oo ubadkaaga dafirto haddana aad social media inta soo istaagto tirada raganimadu inaad awlaadaada iyo xaaskaaga iyo familygaaga intaad ku soo tumato oo aad meel isi soo taagto inaad u doorta shakhsi kale khalad bay kugu tahay. wixii horta adiga naftaada soo sax, xaafadaada soo sax, markaas aad ummad kale aad wax u qaban kartaa ama aad wax u sheegi kartaa. haddaba xildhibaan maxamed abiib weeyaane in badan waa wada taqaaniin, waa xildhibaankii oo hinta lagu soo doortay. markaas xildhibaankaas xaaskiisa ayaa muddooyinkii u dambeeyay social media qabsatay iyadoo ka cabanaysa dhibaatooyin iyo tacdiye aad u badan, xataa ay dil ku jirto inuu dil ugu hanjabay. haddaba iyadoo sheegaysa haba yaraatay inuusan caruurtiisa waxba ku siinin. xildhibaan maxamed abiibna waa taqaanaa, waa nin muddooyinkii u dambeeyay social media qabsaday, waa ninkan dulmiga ka carara sidoo inaga markuu inaga inuu hor taagan yahay runtii wuxuu iskaga keendhigaa nin dulmiga nacab, dhibaatada nacab, in qof la dulmiyo aad u nacab. waana nin hadal cad oo mar walba waxa ka hadlo. haddaba hadalkiisa cad iyo kartidaas iyo raganimadaas uu dadka kale ku difaacayo xaafadiisa iyo qoyskiisa iyo awlaadiisa baa uga baahan maxamed abiib. videoga horta waa inii soo gudbinayaa, laakiin waxaa jirtay hees ah qof kastoo garweyn sheekha u malaynin. haddaba qof kasta oo social media intuu hor yimaado kaaga sheekeeya qiiro jabaan marnaba ha aaminin, sababtoo ah tan wuxuu ku doonayaa inuu caan ku noqdo ama in ayaama la sheego oo la amaano, balse noloshiisa dhabtaa taa way ka duwan tahay. waxbayaan hadalka inagu dheerayne, bal videoga ila daawada. ilaahay qabriga u nuuro. marka xigta waxaan halka ka salaamayaa macallimiintaydii dugsigay qoray. waan ka xusay carab cabdinuur, maxamed daahir madar, yuusuf axmed bookh, allahuma salli calaa maxamed, yuusuf ismaaciil. codka maxamed abiib dhegaysateen oo hintiisa iyo siduu u calool jeecsan yahay. bal haddaba asxaabteeda qaaliga ahay ka gabadhan ila dhegays. anigu TV marka koowaad ka hadlo mana jeclaysan inaan ka hadlo, in badan baan ceebtiisa asturay ay sababtu tahay ubadkayga aabahood buuha dii soo garacin wuxuu yiri adiga iyo midgaanka ay hadal hayaba halkaasaan xabad ka saaraya. who am I hayga saar aniga xabad maxamed, bal maxamed aan ku weydiinaya who am I anigu adiga saartay xabad halkaas, xabad baan halka ka saaraya. kadib uu ila soo hadlay markiisa soo galay waa maxay baan ku yiri xabadaas uu igu hanjabay. kadib dad buu ku yiri waxaan ka usar maalin walba ku maslaxa markay kacdaba ama xakabad istiraata gaba TV tagba $100 ma ina yar kala ganacsanayaan ama shaxaadayaan ama suuqa iska soo bixin baanay mise hooyadii ubadkaaga dhashay baanay horta anigu aabi ubadkayga ila dhalay oo in badan tacadiye kala gaargaar oo kala duwanay geysanayay. sida runtii yar dadku ay u arkaan qof isagu maxaa la yiraahdaa cadaaladda ku dheer oo waxaan ku mar walba xuquuqul insaanka u doodaya oo dadka u doodaya ayuu arkaan. dawladdan xildhibaan buu ku yahay maxamed abiib weeyaan, ninka loo yaqaan xildhibaan oo yahay maxamed abiib. kolay rajaynayaa asxaabay dhammaan inaad videoga aad wada daawateen, si degan aad u daawateen. horta waxaa la yidhi qof calooshu kasoo dhacayso haddaad aragtid marnaba ha aaminin ilaa aad kii kale aragtid. kii kale dhimayaa xataa waruma haysid, markaa qofka ha xakumin hana aaminin. horta waa run ma aaminayno maxamed abiib, yacni gabadhan 99% waxay u eeg tahay wax run ka hadlaysa, sababtoo ah qof hooyaa sumcadeeda kuma disheen inay TV intay soo fadhiisato inay cawato haddaysan dhibaato qabin. way jiraan dad iyagoon dhibaato qabin social media intay soo fadhiistaan ka qayliya, laakiin tan way ka duwan tahay. maamadan duruufa ka muuqata gabadhan
sidoo kale waxyaabaha ka sheekeynayso 99% run bay u dhow yihiin mana wada odhan karno waa xaqiiq dhaba marka asxaabteeda qaaliga bal idinka waxay inala tahay commentiga noogu soo qora ma run bay inala tahay mise been bay inaga tahay mise